horeyntii wiilkan waxaa la dhahaa cabdiqaadir maxamed cabdi laakiin wuxuu ku magac dheeryahay saadiq qabyaaladiid run ahaantii markaa leeyahay ay idin baro waxay ka mid tahay saadiq waxa waaye wiilka keliya ee maantay run ahaantii nolosheeda wax badan ka bedelay muddo badan waxaan ku tahmayay inaan horta aan jarmal ka imaado muddo badan waxaan ku tahmayay meel walba aan u maray oon god walba u galay oon dhibaato kasta u maray haddana ii suurtageli weysay in aan helo run ahaantii saadiq waa wiil dhalinyaro ah oo maantay dhibkay ka danqaday run ahaantii ka dhalinyaro ahaan iigu istaagay ka soomaalinimo iigu istaagay muwaadinimo iigu istaagay ilaahay weyna ka sokow maantii aan dartiisa halkan aan ku joogo caaw waxaan ku jiraa isbitaal run ahaantii qolkayga waxaa ila jiifa qof kaloo bukaan ah sida arkaysaan waa ka saamuuntadiin uu suran yahay geedkayga waa wataa sidaas tahayne wali waxaa rabaa inaan idin sii cadeeyo inaan maaragtay dhibka aan yani aan dareem farxad aan dareemayo in la qaybsado saadiq waxa waaye dhalinyaradii oo maanta ii istaagta ayuu ka mid ahaa oo runtii dadaal badan waqti badan ii soo geliyay jawhi badanna kusoo bixiyay sida uu u keeni lahaa dalkaani saadiq waxaa leeyahay waa maasanta aboowe aadan kaaga mahad celinayaa qofka bini aadanka ah markii la dhaho meel hebel hadaad tagi lahayd waa caafimaadi lahayd run ahaantii qofka sarajaa kusii jirta aniga meesha ee rajadeeda ay yani niyad ahaan ay taalay meeshaan caan waa joogo wixii ilaahay xaggiis ka qoran ma sheegin laakiin wixii dadaal ah iyo wixii kasii badnaan doona insha allah biidni illaahi alkariim waa dadaali doonaa run ahaantii xilligaas aan la hadlaayo waxaan ku jiraa isbitaal xanuun ma igu dhagno oo xanuun oo hadda yani gubay ima hayo laakiin sida ogeedin waxaan ahaa qof u baahan xaalad caafimaad iyo daryeel fara badan saadiq wuxuu noqday qofka kaliya ee maanta ii siiyay gurmad iyo daryeel walaalnimo daryeel soomaalinimo run ahaantii iisoo bixiyay jawhi badan waanu ku mahadsanyahay walaalkayga kolay wixii dhimanna waa soo arki doontiin idinkana waxaa idinka rajaynayaa in ilaahay subxaana watacaala uu barnaamijkayga ii fududeeyo soomaali maxamed run ahaantii garab ay siiyeen way garab istaageen wax walbay ii qabteen maantana waa walaalahayga marnaba kama maarmi karo soomaali oo maanta ayaga dartooda intaan kusoo gaaray saadiq run ahaantii wuxuu ka mid yahay soomaalida ii istaagtay qofka ugu qiimaha qaayaha badan idinkana waxaa tihiin dadka aniga garabkiisiiya oo mar walbeetana garab ila taagan he iyo hoo iyo maaragtay iyo ducaa intiinaba maanta waxaa wax kusoo gaara ducadiina waaye ilaahayna waxaan ka rajaynayaa rajadeeda inuu ilaahay ii aqbalo xaaladeeda waxaa waaye hadda waxay sii socotaa baaritaano kadib howlo badan a imaaday marka insha allah wixii kolay warka sii dhamaystiri doono walaalkayga dad aad ku jeclaa ku daawanaya maanta faiz oo kula jecelnahay alxamdulilah dadkaas shacabkaas ku jecel ayaa aniga kasoo dhex baxay yacni ma kasoo dhex bixin siyaasi kama soo dhex bixin يعني ما كسر حبيحين متقانا إن هيئة كمسر حبيحين ما كسر حبيحين معرتي دولة كمسر صومالي كمسر حبيحين لكن شعب كصومالي يعني كسر حبيحي شعب كصومالي دوحان ليه هاي فيديو كان أو الآن سجلينه وأمد أد أمهم سن فإذا حالة هذا إن بدن أي سود داشتي أكتشين مرحلة هذا جسوا كل مرتي وحرب إن شاء الله إن حالة فإذا وربحنا هذا إن أنا حاجة نجاga فالوضو إن شاء الله دوله هذا صوت إتاه إن بدنا عيش هذا يعني برنامج من كودي ودن كأنا هذا فإذا أنك كأني أو معرتي أي عن مسؤولية إذا ما تخانا عن سوق هذا صوت إتاه فإذا مسؤولية إذا وحنا كقاتي ملء الله عن كقاتي وحنا قاتي وحنا أركي إن وحنا لو قبنين مسؤولية من كقاتي فإذا أنا مسؤول أي ما تخانا أنا جاك إلهي سبحانه قادر كسركو أنا مسؤول كأه كدبنا يعني وحتها هي وأنا أنقاتي نيك كلي له معرتي إلى قرب قلي أو أمانتا كي أمانتا أن متخانا أن شعب الصومالي هرتو أو شيء أو ما هالعلنا وحواي وويل صوماليات وحجوجا ودن كتركيا
istanbul uu degan yahay istanbul uu joogaa waxaa la lahaa cabdiraxmaan aa lahaa magaciisa kale facebook wuxuu kusoo galaa saahil maxamed oo kusoo galaa ninkaas waxaa waaye garab weyn oo isiiyey waxaan leeyahay saaxiib soomaalinimadaada iyo qalbigaygu siduu yahay qofka kale labaad oo as dhihi karo soomaalidiisu way caddahay ama damiir uu leeyahay waa adiga saahil aadana ma santa abaalana ku hayna aboowe faa'iidana waa ugu jeedaa say marka insha Allah taala asxaabteeda sharafta leh inaan ku sii fogaano ma rabno kulay aniga hadda isbitaalka waxaan kala kulmi doono insha Allah xaaladeeda saacad inay la soo socodsiin doona saadaqna waxaa leeyahay guuleyso meel walba